deegaanaha oo ay horkacayeen wasiirka xafiiska waxbarashada deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Faatax Maxamed iyo wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Bashiir Shaafi oo ay ku wehelinayeen mas'uuliyiin kale heer deegaan ah isla markaana socdaal hawleed ku maraya gobolada Erar iyo Nagob iyagoo u kuurgalaya xaaladda nololeed ee bulshada isla markaana kormeer dhagax dhig iyo xariiq jar ku sameynaya mashaariicaha horumarineed ee sanadkan 2012 ee tirsiga dalka howlahooda shaqo ayaa waxay ka bilaabeen degmada Cayuun iyadoo halkaasina si heer sare ah loogu soo dhaweeyay kadibna waxay dhagax dhigeen dugsiga sare degmada Cayuun ee gobolka Nagob deegaanka wad ogtihiin waxbarashadu dhibaatada ka jirtay degmada Cayuun laga yaabo degmada ugu dhaweey 60-70 kilomitir ay jirtaa ardayga dugsiga dhexe ka baxo meesha ugu dhaw dugsiga waadaya 70 kilomitir ay waxay noqonaysaa ugu yaraan boqolkiiba 50 iyo ka badan in ardaydu dugsiga halka kaga hadhaan si taa loo baabiyo in ugu yaraan degmooyinka deegaanka ka jiro ugu yaraan degmadiiba hal dugsi sare leedahay markay ugu yartahay degmooyin ay ka mid tahay Cayuun baa dugsi sare lahayn sanadkan qorshaasi uu yahay sanadkii la soo dhaafay 22 dugsi sare cusub la dhisay 22 ama 22 dugsi sare dugsi dhaxana ballaarin baa lagu sameeyay dugsi sare loogu sameeyay u gaadhaan sanadkan waxa noo qorshaysan 13 dugsi sare iyo 9 boodhan oo dadka reebiga loogu talagalay inay wax ku bartaan marka waxay noqonaysaa Cayuun degmooyinka 13 ee nasiib ku helay dugsi sare helaan bay ka mid noqonaysaa sanadka insha Allah ardaygi koobaad bilaaba waa inaan ku talagalnaa 12 inuu ka baxo inuu arday dhaxda kaga leexdaa oo san jirin waalidiinta waajibkooda weey mas'uuliyiinta halkan jooga waajibkooda weey anana dhismihii iyo tayadii iyo agabkay u baahnayeen inaan keeno waajibka iyaga weey dhamaan waxaabihii mashaariicii waxaan ognahay inta badan uu soo wada dhaxdhiga madaxweynuhu in ay dhamaantood ay wada socdaan oo la wada bilaabay سياسة لما ذكرنا هذا وعمد وصعد براسكيسي أو بلان قاعدين هذا السنة كان لو جرى قرش هذا حتى بقى إن هوش اللي هو عن بالله إنه بيش نكون حكتين إن شاء الله بالله مدونه مشروع عني دقمنا العيون وحيكمل هي دقمين كي وقت يدي دم بين السمية عصبة وحين قصعتها سحولية إن شاء الله مشاريع حسن كان دقمنا الواقبتي نحكم ذا بيجرينتي أو الدراسة دي مال في عن أول مستعد جبتها أو بيجي أو وجرت 2 كيلومتر لقصو جيدنا إن شاء الله هلكن لوكين دونا وحالكن مرضنا وددي وين ذا اللامي هيد وحرجين إن شاء الله ودك راعيون إني كيف يسندون نسبة الديانك أو أي هذا كهر سنة كتيرين وحيا بس إن شاء الله لو قبض أي مسؤولين اجتماعات أي ضد إن شاء الله يماده qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Cayuun ayaa soo dhaweeyay dhagax dhigga dugsiga oo kaalin ka qaadanaya marka la dhameystiro baahida waxbarashada ee ka jirta degmadaasi waxaan hambalyeynaa aad iyo aad soo dhaweynaa iskuulka sare ee laga dhisay degmada Cayuun waxaan ognahay waxbarashada ama tacliinta waxa la yiraahdaa waxa bulshadu ay horumar iyo thaqaafo ku gaadhay inay tahay marka waxaan leenahay Cayuun hambalyeysta anana waa idin hambalyeysanaynaa xisbiga dimuqraadiga shacabka wax qabadka balaaran ee uu noo qabtay yaan ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo aan u sheegaynaa hal in la iska iloobo wax la barbar dhigayaa oo annagu wataan nahay degmada Cayuun aan barbar dhigaynaa xisbad dimuqraadiga shacabka ma jiro bataatanba nooc doon lahaaday isbedelka isagana waan ku faraxsanahay waana sidoo uu yeelan u tabagalnaynaa takada waxaan idinka mahad celinaynaa wax qabadka degdega ah ee durba loo yimid hadda shirkan waftiga maanta soo waftiga ka horeeyay ee uu hogaaminayay Faysal Daahir Xashi aan ka wahalay baahidii degmadu ay u baahnayd durba jawaabaheedii bulshadu soo degdegay oo uu keenay taasna waxa laga mahad celinaynaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed oo mahad celinaynaa jawaabaha degdega ah uu soo bixiyay waxbarashada anaguna inaanu dardar gelino oo waxbarashada dardar gelino oo xisbiganaga aanu gacan qabanno oo garab istaagno waan u baahnaa anaga diyaar u ah